Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa kulan looga hadlayay dardargelinta mashruuca dekedda Hobyo la qaatay Wasiirka Gaadiidka, Dekedaha iyo Isgaarsiinta Qatar Said Jassim bin Said. Heshiisyadii Qatar iyo Soomaaliya kala saxiixdeen ayay ka mid ahayd dhismaha dekedda Hobyo oo muhiim u ah kaabayaasha dhaqaalaha, taasi oo ay dhismaheedu dowladda Soomaaliya ay siinayso ahmiyad weyn. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo Wasiirka Gaadiidka, Dekedaha dowladda Qatar ayaa isla qaatay ahmiyadda ay dowladda federaalka ugu fadhiso dhismaha dekedda Hobyo, isagoo wasiirka dekedaha ballan qaaday in dowladda Qatar ay bilaabayso dhismaha dekedda Hobyo ee gobolka Mudug. Wasiirka Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan, oo ka mid ahaa mas'uuliyiintii shirka ku helinayay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya, ayaa xusay in dhowaan la bilaabi doono howlaha lagu dhisayo dekedda Hobyo. shirka hadda soo dhamaaday waxa looga hadlay Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu kulan gaar ah la yeeshay Wasiirka Gaadiidka, Isgaarsiinta iyo Dekedaha ee waddanka Qatar. Xaaladahan waxaa ka mid ah horumarinta mashruuc hore loo ballan qaaday iyo bilaabidda dardargelinta mashruucii lagu dhisayay dekedda Hobyo looga dhisay. Mashruucaas waa mashruuc ay ballan qaadeen, ay tageen, soo arkeen, soo fiiriyeen, maadaama maalin hore ay dhowr bilood ka hor tageen. Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu ku adkeeyay kana codsaday in mashruucii la bilaabo si ugu dhaqsaha badan. Mashruuca hadda ayaa bilowgiisa mashruucaas bilaabanaya oo feasibility study iyo shaqooyinka la rabay iyo wixii oo dhan la howlgalaya. Marka mashruucaas waxaa mid si gaar ah Ra'iisul Wasaaruhu ugu adkeeyay wasiirka la kulmay, wasiirkuna oo ballan qaad shakhsiyan oo ka sameeyay arrintaas oo ballan qaaday in maanta dabagal hadda laga bilaabo mashruucaas si loo hirgelinayo, loo fulinayo, looga maradhalinayo, laga wada shaqeynayo. Marka runtii waxay ahayd shir gaar ah oo ka baxsan shirarkii aan lahayn Ra'iisul Wasaaraha waddankan iyo wasiirada kale lahayn. Waxay tusaysaa ahmiyadda ay leedahay mashruucaas leeyahay, sida dowladda Soomaaliya ballanqaadka dhexdhigga madaxweynaha iyo booqashooyinkii kala duwanaa lagu tegay iyo ballanqaadyada la sameeyay Ra'iisul Wasaaruhu in laga maradhaliyo inuu rabo inuu ku adkeeyo wasiirka in arrintaas ay tahay arrin serious ah oo dowladda Soomaaliya serious u qaadanayso. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dadaal iyo waqti dheer ku bixinaysa sidii loo horumarin lahaa kaabayaasha dhaqaalaha, kaas oo horseed u noqonaysa kobaca miisaaniyadda dalka. Dekedda Hobyana mashruuca lagu dhisayo waa qayb ka mid ah mashruucaasi. Cabdixaafid Cabdiraxmaan, Warbaahinta Maalmedia.